niman rabshad wadayaal ah oo qaska ku tala galay ay bilaabeen inay soo weeraraan qasrigii aan deganayn qasriga rasaasaan xad lahayn baa lagu furay waxa ka dhacday dhaawac 8 askari ah gudida nabadgelyada gobolka Sanaag oo uu hogaaminayo badhasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse Axmed Istabar ayaa ka hadlay xaaladda nabadgelyo ee degmada Ceelafweyn badhasaabka gobolka Sanaag ayaa sheegay in lagu soo weeraray qasrigii ay ka deganayeen degmada Ceelafweyn xilli ay ku guda jireen nabadgelyada degmada Ceelafweyn iyo kiis shalay toole ka dhacay deegaanka Qaloocato kaasi oo ku geeriyooday marxuum lagu magacaabo Abokor gudoomiyaha gobolka Sanaag ayaa sidoo kale sheegay in kiiskaas hore uga dhacay deegaanka Qaloocato ee marxuumku ku geeriyooday ay u xidheen 4 askari gudoomiyaha oo arrimahaas ka hadlaya waxa uu yiri nabadgelyada gobolka xubnaha ku sugan degmada Ceelafweyn dhacdo ka dhacday shalay toole deegaanka Qaloocan ila xasliinta u dhaxaysa taasoo ku dhintay Allah u naxariistay marxuum Abokor marxuumkaas oo geeridiisu sababtay inay xoogaa shaqaaqa ahna maanta Ceelafweyn ka dhacdo ugu horreyn waxaan u tacsiyeenaynaa eheladii marxuumkaas waxaan leenahay Ilaahay u naxariisto ehelkiisiina samir iyo iimaan saadaqa ka yeelo sida caadiyana marka dilalku dhacaan ciidanka booliisku waxay sameeyaan baadhis hordhaca baadhistaasoo lagu qaado tallaabooyinkii markaa la gudboon annagoo dhammaantii hareeraha ka wada taagan guddi nabadgelyo ahaan kiiska ilaa xalay taliyaha qaybta booliiska gobolka Sanaag wuxuu ku jiray baadhistiisii waxa wax laga qorayay dhammaan goobjoogayaashii baadhistaasoo aanu saaka 5 subaxnimo Ceerigaabo annana kaga soo kalahnay naloogu soo bandhigay sida ay u dhacday go'aankii aanu ka qaadanayna aanu u gudbinay eheladii marxuum ka dhintay Allah u naxariistay taasoo aanu ballan u qaadnay inaanu tallaabo ka qaadayno baadhistiina aanu xidhnay 3 askari oo kamid ah ciidan 4 askari oo kamid ah ciidankii meesha marayay oo ahaa intii ugu dhawaa insha Allah bismillaah kariimna aanu si maxaan ku raahdaa wadistiisana aanu ku jirnay waayeelkiina aanu islaaf garanay inay dhacdadaas aanu si wada jira wax uga qabanno mushkilad iyo problem midina ma taagnayn arrintaas oo aan waayeelkii islaaf garanay stagekii meydka inaanu u gudubno baadhistaana arrintaa loo daayo baa niman rabshad wadayaal ah oo qaska ku tala galay ay bilaabeen inay soo weeraraan qasrigii aan deganayn qasriga rasaasaan xad lahayn baa lagu furay waxa ka dhacday dhaawac 8 askari ah oo dhammaan xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo isbitaalka yaala magaalada Ceerigaabo iminka propagandaha iyo dacaayaadka iyo maxaan ku raahdaa wararka aan jirini buunbuunin weyn bay ka dhigeen waxaan u sheegaynaa ummadda ku nool guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland Ceelafweyn anaga ku sugan waa nabadgelyo weeye dhacdada dhacday oo aan runtii aad iyo aad uga xunnahay la murugoonayno eheladii ay ku dhacday waxaan u cadeynaynaa inaanu baadhisteedii gacanta ku hayno ciddii hordhaca ahaydna ay u xidhan tahay sababta ay u dhacday iyo sifada ay u dhacday iyo sida uu dhintayna aanu insha Allah bismillaah kariim soo bandhigi doona hadii Ilaahay idmo dhinaca labaad rabshad walayaasha qaska wada ee doonaya inay dadka kala qaxiyaan ama Hargeysa ha joogaan ama halkan ha joogaan meediyaha ka hadlaya ee maxaan ku raahdaa aan xaaladda halkan taala cabiri karay warna ka hay ee wardhagoolka doonaya inay ku cabiraan adeer gobolka anaga joogna waa gobolkayagii waa degmadayadii inaanu islaamaha hooyooyinka iyo maxaan ku raahdaa ciyaalka qaxino ugumaanu talagelin maxaan ku raahdaa mana ogolaanayna inay dhibaato dhacdo oo annagana cidna u ogolaanayna inaanu dhibaato
maxaan ku rahdaa deegaankan aanu ku samayno laxa jeclana annaga ka qabna rabshada aan wadaan iyo siyaasiyan arrimaha ay isu dhex gelinaysaan wallahi inaan ceelafeen calan buluuga lagu arkaynin tallaabana waa ka qaadaynaa waa dabagelaynaa wixii waxa waday waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madax dhaqameedka gaarka beesha marxuumku ka dhintay oo si waayeeltinimo leh oo xilkansnimo leh aanu iyaga u wada hadalnay arrintiina isla fahanay gorfayn inay isla noqdaan oo aanu isla soo noqonana aanu ku ballanay wax intaa ka baxsan oo siyaasada arrintaa kama ogolin ciidankana asqaastii laysay waa garanaynaa mid walba gurigii waxa badda ka soo ridayay baanu garanaynaa qofkii uu ahaana waa garanaynaa tallaabo cadna waa laga qaadi doonaa haddii ilaahay idmo sidoo kale waxaan u ducaynayaa dadka shacabka iyaguna wax yeeloobay gabadh baa iyaduna wax yeelada ka mida sida aan maxaan ku radaa warbixinta ku hayo iyaduna waan u ducaynaynaa in ilaahay u fududeeyo dhaawaca ka Saciid Qurbaawi telefishinka CBA Cerigabo واو اسبوع كيسو في عايز صاحبي waad ka heshay sooma ما شاء الله صح ما عادش بسيط waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 5 iyo 10 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa